ciidamada liyu booliska dowlad deegaanka Soomaalida ayaa xasuuq iyo barakicin aad u xoogan u geystay mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed waxay xabsiga u taxaabeen ugaaska beesha Akishe waxaana la sheegayaa in ciidamadu halkaasi ay ka geysteen tacaddi iskugu jira naf iyo maal xilli shacabka Soomaalidu ay la daaladhacayaan xasuuqyada iyo gumaadka ay ku hayso qoomiyadda Canfarta ee maalinlaha dhinaca kalena aysan jirin ciidan iyo dowlad Soomaaliyeed oo difaacayo su'aasha isweydiinta leh shacabka Soomaaliyeed ka dhex guuxaysa ayaa ciidamada Soomaalida ee liyu booliska waxa loo samaystay gumaadka iyo gumeynta shacabka Soomaaliyeed xilli shacabka Soomaaliyeedna dhinac walba uu kaga socdo weerar xogan haddaba xaaladda magaaladaasi iyo gumaadka ay ka geysteen ciidamada liyu booliska dowlad deegaanka Soomaalida xabsiga ugaaskaasi iyo xaalado kaleba waxaa khadka taleefanka kaga warbixiyay mid ka mid ah shacabka degmadaasi Axmed Daahir bal waxaan nooga warantaa maalmihii ugu dambeeyay waxa shacabka degmadaasi Gursum ay ka cabanayeen dhibaatooyin ay kala kulmayeen ciidamada gaarka ee deegaanka sidee bay wax u dhaceen maxayse ciidamada waqtigaani dadkaasi u dhibaateynayaan ku dhaqan degmadaasi iyo deegaanada ku xeeranba aad iyo aad baan ku salaamayaa jaamac intaas kadib haddii aan su-aashaada soo gudbo maalmihii ugu dambeeyey dhibaato aad u weyn ayay ku hayeen ciidamada liyu booliska ee deegaanka Soomaalidu santarro ka mid ah degmada Gursum gaar ahaan santarada ay degaan beesha Akisho sida santarka aanane ceelayaayo dulaxbaab golbarwaaqo magaalo xariimo barakaale bakaale dhammaan santaradaas waxay ku hayeen dhibaato aad iyo aad u fara badan iyagoo dadka markaasi aan u kala aabayeelin oo jir dilaya hadday carruur yihiin hadday dumar tahay odayaasha waaweyn isla markaana guryaha baaraya iyagoon u haysanin wax ogolaanshaha ama ogolaansho maxkamadeed sidaynu ognahayna sharciga Itoobiya wuxuu ogol yahay in amar maxkamadeed lagu baari karo guryaha marka dadkii imika dhibaatada ay u geysteen ayaa lagu dabiibayaa dhakhaatiirta iyo meelaha xarumaha caafimaadka ee aanana iyo meelo kale oo kamida deegaankaas waxa kale oo iyaduna jirtay in loo geystay dhibaato xagga maaragtay xididda ah oo dad aad u fara badan ay maalin dhaweed xidheen isla markaana ilaa hadda waxaa xidhan 6 xubnood oo kamid ah odayaasha ugu muhiimsan deegaankaas waxaana hadda ka hor ay xidheen ugaas Bashiir Cali Xaydar oo kamid ah isaguna dadka ay xidheen oo maalin dhaweed ay soo daayeen marka run ahaantii dhibaatada sababta loogu hayo waxaan u malaynayaa inay daba socoto dhibaatadii dhacday bishii 3aad 20keedii 2022 oo maalinta ay sabab la'aan ku dileen 11 qof oo shacaba oo masaakiina oo markaas iyagu dooranay hoggaan dhaqan marka maamulkii iyo maaragtay ciidamadii maalinta dhibaatada inta leeg bilaa sabab ku geystay in imika ay jirdil iyo maaragtay xarig iyo dadka la iska hayo inay geystaan way uga fududahay marka dhibaatooyinka hore iyo beegsiga ay dawladdu ku haysaa dadka ka hor deegaankaas bay kamid tahay waxaa nagu maqaal ah sida hadda sheegtay in la xiray odayaal badan oo uu ku jiro ugaaskii beeshu muxuu xarigaasi salka ku hayaa ayaan isdhihi karnaa ee loo xirxirayo salaadiinta beesha Akishe ruuxaantii xarigaasi wuxuu ahaa xarig lama oran karo waa afduub ahaa waxaa lagu tilmaami karaa afduub waayo haddii xarig uusan waafaqsanayn sharciga Itoobiya waa afduub sidaad ogtahayba maalmo dhaxdii ahayd oo imika ka soo wareegtay adu bishii 9aad 20keedii waxaa ka dhacay shaqaaqo balaaran oo loo geystay beesha Akisho halkaasoo rag lagu laayay iyagu markaasi santarada maamulayay oo ahaa madaxda santarada Akisho eriyada Boorale marka kacdoon shacab ayaa halkaas ka dhacay marka dadku marka waxay gudood ku sameeyeen dadkii iyagu ay islaayeen way ka dambeeyeen inay soo abaabuleen dhibaatada halka ka dhacday barakacba marka halka ka bilowday ay beesha Akisho markaas iyadu kaga jawaabaysay dhibaatada halkaas ka dhacday iyo dadkii laga laayay taasoo aysan ahayn ay dhibaatadaas ama barakaca dadka kale loo geystay oo aysan ahayn mid salaadiinta iyo waxgaradka Akisho iyagu ay mid ay ku taliyeen aan ahayn balse dad shacab oo geeriyooday ay halkaas ka sameeyeen dad fara badan ay halkaas ka barakaceen hase yeeshee soo dhaweyn ay dawladdu samaysay iyo heshiisiin ay iyadu markaas soo propose garaysay
oo ay labada dhinac isugu keentay aanane iyo Bambaas dhaxdeeda waxaa lagu go'aamiyay in heshiis nabadeed halka lagu gaadho isla markaana xabad dambe ayna dhicin cidii xabad dambe ridana 500 oo kun oo dollar 500 oo kun oo bir la ganaaxo lana xidho odayaashooda halkaas iyadoo hawsha ay marayso odayaashii markaa agsho run ahaantii way fuliyeen heshiiskii sidii loogu talagalay wax badan ma ridin wax dhibaatana ma ridin iyadoo markaa la rabo in dadkii la soo celiyo ka barakacay deegaankaas oo odayaashii agsho wada hadal lagula jiro sidii dadkii ka barakacay deegaanadaasi ay dib u soo noqon lahaayeen ayaa markaa haddana 3 nin oo agsha oo markaas iyagu beero qodanayay xabad lala gaaday oo halkaas mid laga dilay laba kala dhaawac ay noqotay dhacdadaas oo markaa ay ahayd in loo xidho dadkii ka dambeeyay dhibaatadaas ee heshiiskaas buriyay oo ay lana xidhayna sida ay ahayd la sameeyay oo dadka la xidhay markaa iyagu ka dambeeyay dhibkaas odayaashooda qaar kamid ah iyo haddana markii dambe waxaa la soo xidhay odayaal fara badan oo agsha oo iyagu wax heshiis aan jabinin wax dhibaatana ayna dadkoodu geysanin iyagoo markaas dadka lagu qancinayo marka nasiib wanaag ugaas Bashiir Cali Xaydar baa kamid ahaa dadkii la xidhay balse waa la soo daayay hadda marka ilaa hadda waxaa xidhan odayaal kale oo fara badan oo agsha xidhaygaana waxaa sii dheer in dadkii deegaanka Booraale ee nabadda jeclaa iyagu xabad laga gardaran yahay mooyana xabadna ridin dadkoodiina bishii 3 ilaa 22 labada cisho dhibaatada weyn loo geystay bilaamada aragtay sababta ahaa in haddana maanta ciidamadu ay ku hayaan dhibaatooyin aad u fara badan oo jirdil ah oo xidhay ah oo maaragtay dad la iska hayo 5 saacadood meel bannaan lagu hayo guryo la baadho aflagaado runtii arrinkaas waa nasiib darro waxaan oran karnaa dadkii ka dambeeyay xasuuqii bishii 3 ayaa haddana hagaya dhacdooyinka hadda ka socda Booraale Cabdi Daahir waxaa nagu maqaal ah in maalmihii ugu dambeeyay dhalinyarada u nasab sheegtay degmadaasi ay baaritaano badan kala kulmayeen ciidamada gaarka ee deegaanka saacadihii ugu dambeeyay waxaa kale oo xogo naga soo gaaraya degmadaasi ay sheegayaan in ciidamo badan oo laga soo daabulay jigjiga ay soo gaareen kuwaasoo saacado badan baaritaano ku haya dadka shacabka haday haba u badnaadaan dhalinyarada bal maxaa ku gaar ah degmadaasi Gursum oo gaar uga dhigay in ciidamadu intay tagaan baaritaano inta leeg ugu geysanayaan dhalinyarada u nasab sheegta degmadaasi runaantii waxaan ku sababayn lahaa oo kaliya inay tahay isirbeegsi ama beesha aksho oo iyadu markaasi lala maagay cadaadis ka duwan deegaanka Soomaalida kale mid saaran ka duwan ama aan ahayn mid saaran deegaanka Soomaalida meelaha kale waxaan ku garanaysaa degmada Gursum oo aksha ay majority ka tahay siyaasadii waa laga xayuubiyay oo tusaale ahaan beesha aksho oo 15 qabale santar gaar u leh ama ilaa 46 qabale u dhiganta oo ay kamid yihiin 13 santar ee ka soo noqday Oromia xilliga Cabdilay aad iyo aadna maarta santaradaas ay waaweyn yihiin oo qaarkood santaradii Oromia ka soo go'ay u dhigay mid waliba santar waliba u dhigmay intaas qabale sida ay tahay haddana gudoomiyaha degmada lama siin gudoomiyaha ku-xigeenka degmada lama siin saddexdii xildhibaan ee degmada ka soo baxayay lama siinin waxaana challenge garanayaa haddii la soo helo beel aan agsha ahayn oo 3 santar gaar u leh يعني 15 santar bay agsha gaar u leedahay degmada Gursum markii la yiraahdo bal beesh lagu soo xigto waxay leedahay 3 santar marka sababta aksha ay u weeday yani matalada noocaasa wad garanaysaa inay tahay silbeegsi iyadoo taas ay jirto ba haddana markii aksha si iskeeda oo iyadoo madax bannaan ay hoggaankeeda dhaqan ee iyadoo matala dhaqan ahaan ku matala ay dooranaysay yaa xitaa taas loo quuri waayay oo waad ogeyd in halkaasi 11 ruux lagu xasuuqay 5 ilaa 7 lagu dhaawacay arrinkii darteed bay imika daba socotaa hawshani waa isla dhacdadii waa isla dadku waa dadkii dadkan waxa dhibaatada loo geysanaya waa dadkii dadka dhibaatada geysanayana waxa weeyaan
واسلا maamulkii dadkii abaabulay isku dubariday saraakiisha fangareeyay ayaa ilaa hadda maamulka qaybihiisa kala duwan kamida oo waxba laga qabanin oo qaarkood la daraasiyay sanadkii hore dhacdada ka dhacday Mombasa ay ku dhinteen in ka badan 10 qof dhowr iyo 20 kalena ay ku dhaawacmeen sidoo kalena dad badan ay waxyeelo kala duwan ka soo gaadhay ilaa ay hadda wax magdhow ah maamulka deegaanku ma ka siiyeen dadka ay ciidamada laayeen waase sidee xaaladda dadkaasi hadaad war ka haysid ruuxantii magdhow lama oran karo wax dawladdu way bixisay wax laakiin wax dee u qalma dad agoona oo odayaashii la laayay ama dadkii masaakiinta la laayay qaarkood ay afar xaas lahaayeen xitaa oo qoysaska qaarkood ay ka kooban yihiin 120 qof dadkii yani u shaqeynayay beeraha u qodayay dad maartay u ahaa indhaha bilaashka iyo kibirka lagu dilay kullay de magdhow dhigmada lama bixinin oo de wax yar dawladdu way bixisay bariga laakiin taa anagu waxa nooga muhiimsanayd oo psychological satisfaction ay dadka ugu helaayeen inay dadka deegaanka kamid yihiin oo sharcigu u heelin karo waxa ay markaas ay taasi ka kalsoonaan dadka inuu sharcigu u heeliyo isla markaana talaabo laga qaado dadkii ka dambeeyay ilaan iskama dhicin dambigani maalmo dhan baa ciidamo la sii gurayay diyaar garow fara badan baa jiray saraakiil baa wada hadlaysay salaadiin baa loo hanjabay qaar baa laga qabtay maalmihii ka horreeyay oo dhan baa dad la sii xidhay yacni dhacdada noocaas ahayd intaasoo dabaqadood lahayd